ولا ليال تنوى فلسطين بديدا يبرقيدبا قسنا وهلكني على مدى عيسيقا يقوشا فلسطين إن شاء الله كون سقال بقول سيديريا أفرتنكي قسوحا أسوقحي إنك بدن صدن كن أو فلسطيني kuwaasi oo laga soo saaray magaalooyinka kale ee waddanka Falastiin waxaana ka soo qaxiyay budhcadda Yuhuudda 2005 waxaa qasab ku noqotay Yuhuudda inay gobi ahaanba ka baxaan magaalada Qasa iyagoo u adkaysan kari waayay weerarada istaba joogga ah ee ciidanka iska caabinta Falastiiniyiinta sanadka laga bilaabo Yuhuuddu waxa ay geliyeen Qasa go'doon adag oo dhinaca hawada badda iyo barrigaba ah bal suurayso jeelka ugu weyn adduunka intaa yar ee ciriiriga ah waxaa ku nool in ka badan 2 milyan oo Falastiin waa dhul aad u yar oo aan ka badnayn 380 kilomitir square waana jeelka ugu weyn adduunka ee ay samaysatay Yuhuudda lacnatullaahi calayh isaga oo caalamka oo dhanina uu indhihiisa ku daawanayo in ka yar 20 sano 2008 2009 2012 2014 2018 2021 iyo 2023 Israa'iil waxay u adeegsatay magaalada Qasa inay ku weerarto oo ay ku duqayso hubka ugu culculus uguna awoodda badan leh waxaana ku dhintay boqolaal kun oo caruur iyo dumar u badan haddana may helin oo may awoodin inay gaadhaan ujeeddadii ay lahaayeen Yuhuuddu inay wiiqaan awoodda iska caabinta balse waxayba ka sii qaadaan awood iyo adayg Falastiin way xoroobaysaa guushana way gaadhaysaa insha Allahu tacaala magaaladan yar waxaa ku duugan tadxiyaad iyo shuhado aad u fara badan mana awoodno inaynu nidhaahno mooyaane qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala lillahi al-amru min qablu wa min bacdu wa yowmaidin yafraxu almu'minuun binasri illahi yansuru man yashaa wa huwa alcasiizu alraxiim We lived a good life till 1948 when we were displaced.